السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. weli waxaan ku jirnay duubitaanka imtixaankii 2024 hore maadada xisaabta su-aasha toddobaad ayaan maraynay oo qaybta doorashada. su-aasha toddobaad waxaa la yidhi if haddii a ama matrix a ay la mid tahay 2 3 3 4 then determinant of a na uu la mid noqonaa. determinantiga lagu diray xisaabtan fahmtiga lagu soo qaataa. determinantiga hadduu noqdo 2 by 2 hadduu noqdo hal samee isdhaaf la isku dhuftaa kadib waa la kala jaraya. okay 2 iyo 3 isku dhufanaysaa marka hore 2 iyo 3 haddaa isku dhufato waxay ku noqonaysaa meeqay ku noqonaysaa waxay ku noqonaysaa 8 ayay ku noqonaysaa kadibna 8 waxa ka jaraysaa haddana waxa isku dhufan 3 iyo 3 waa 9 haddaa kala jarto meeqa ku soo baxay -1 marka jawaabtu waxay noqonaysaa -1 ama c ayaa jawaabta saxda ah. okay su-aasha sideed ima waxaa lagu yiri find solve the area of the rectangle. laydigan meesha ku qoran waxaa laga rabaa area-diisa laga rabaa waxaa lagu siiyay dhirarkiisa balciisa lagu siiyay marka area waa iska sahlantaa dhirarka iyo balca la isku dhuftaa sidaas ayaa waxa ku helaysaa jawaabta saxda. markii la isku dhufana waxa la isku dhufanaa dhirarkan oo ah 3 plus radical 2 iyo balcan oo ah 3 minus radical 2 marka waxa laga rabaa jawaabtu waxay noqonaysaa 9725 mid ay noqodo ayaa laga rabaa. sidee la isku dhufanaa marka qaab la isku dhufaa iska sahlan yahay. hadda ka hor waxaan soo baranay qaacidadan waa inaad taqaana a minus b oo lagu dhuftay a plus b laba isku mid waa hadda Soomaaliya oo minus la u dhaxay markaas waxa lagu hayo waxay la mid tahay a square minus b square la mid. haddana sidoo kale aan uga shaqeynayna oo waxaan isku dhufanaynaa labada xaba isku dhufanaynaa oo ah radical 3 and 3 radical okay marka waxaan isku dhufanaynaa dhirkii balca isku dhufanaynaa waxaan leenahay 3 plus radical 2 ayaa waxaan ku dhufanaynaa 3 minus radical 2 labaas isku dhufanaynaa sababtoo area waxa lagu helaa dhir iyo balca isku dhuftay si fudud isku dhufanaynaa qaacidadan isticmaalna a waa 3 square gare minus b dun waa radical 2 ayadana square gare 3 hadda square gare waa 9 kan hadda square gare maxaa dhacaya waxa isla baxaya square-ka iyo waxa isla baxaya iyo radical-ka waxay ku 2deedii la ahaanay marka hadda 9 2 ka jarto meeqay ku noqonaysaa 7 marka 7 cm ayaa sax oo ah c 7 cm ayaa sax oo ah c. okay marka sidaas ayay ku noqonaysaa. okay su-aashan kale ayaan u imaanaynaa oo sagaalaad ayaan u imaanaynaa aad iskaga fiiri sagaalaad u imo ayadana su-aasha sagaalaad iska fiiri waxaa lagu yiri the factorization markii la isireeyo a cube minus 8 mooxel inta mid ay la mid noqonaysaa. okay ayagana form 3 waaye aad iskaga fiiriya waxaa jirta qaacido noocan waa inaad fahansataa qaacidadan iska fiiri a cubic minus b cubic qaacidadan si loo furfuro ay noqoto waxay la mid noqonaysaa a minus b oo lagu dhuftay a square plus ab plus b square saas ay la mid tahay iska ilaaliya sidaas ay la mid noqonaysaa marka aad iska fiiriya qaacidadaas aan isticmaalaynaa 8 ka laakiin waa inaan u qornaa cube as cube number waa inaan u qornaa marka 8 waxa u qori karnaa a cubic 8 ka waxaan u qori karnaa 2 cube aan u qori karnaa Soomaa marka waxay noo noqonaysaa a minus 2 haye a square a iyo b a iyo 2 la isku dhufana waxay ku noqonaysaa plus a plus 2a plus 2a cafan ilaa 2a b ku Soomaa 2a kadib waxa u dambeeya b square b waa 4 da square waxay noqonaysaa iyaduna 4 ay ku noqonaysaa 2 square 2 hadii la wajibaro waa 4 marka sidaas ay jawaab sax waaye. jawaabtaas aan dooranaa marka waa mid u dambeeyay Soomaa tan ayaa sax noo noqonaysa marka jawaabtaas ayaa sax noo noqonaysa oo a minus 2 oo lagu dhufto a square oo lagu sii daro 2a oo lagu sii daro 4 jawaabtaas sax noqonaysa marka ayaduna waa sidaas. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.